السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا soo dhawaada waa mar kale janaalkeeni Hiseyno iyo saaxiibkii Xasan Kalaay oo meesha idin soo galay waa idin salaam dhammaantiin inta janaalkii soo boqotay inta kale wada maxadsantihiin noo share gareey subscribe insha Allah taala hal iscaawi walaalayaal iscaawinta Soomaalinimada iyo dhiignimada dadka walaal ugu yahay intaan hargab iska jira ma garateen yaa jafowgeeni waa noo soo laabaa dadkii siyaasiyiinta aan jafaynay yaa kamaanan caajisin mana ka caajisi doono hawsheena si kastoo nagula qabsado la dhaho haye jooji waxaan iyo waxay ahaatay waxaa siisaan waaye iyo ma garate macnaha anaga waxay ahaatay wixii aan u aragno inay dadkii dalkeena iyo yaa dadnimadeena hoos u dhigayaan aan duqaynaa ma garateen laakiin wixii aan u aragno dadnimadeena iyo dalkeena inay kor u qaadayaan yaa waan la shaqaynaynaa walaalayaal marka aniga ma kala lihi waxay ahaatay siyaasad iyo wax walba iyo waxay ahayd actirooyin iyo yaa waxaas aniga meesha markaas aan is idhaahdo niyahow mawduuc xaggaas ka shidan yahay waa galaa ma garateen marka mawduuc walba open ii yahay waxaan kala soo celi doonaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay idmo waxaan kala soo celi doonaa hadduu ilaahay idmo su-aalihii jawaabihii waa soo celi doonaa markuu codkii caadi kusoo laabto waxay ahayd hirgabka waxaan iska baxaan yaa maraq la-aan iska jirta maraq la-aan yaa maraq xilli ugu dambeysa ma garanayo maraq mashabaab la yaqaano yaa inkastoo Soomaaliya maraqa iyo sabta waa iska diyaar ahayd laakiin inta yaa marka waxay ahaatay hirgabka intuu iska baxaya asxaabay sheekooyin kale barnaamijyo kale laa inaan galan le maahani yaa hadda waxaan rajeyneynaa inaan si walba meeshaan ka wada sheekeyno hadda ka wada qaraxeysano yaa caawo mawduucaan rabo inaan wax ka iftiimiyo wuxuu yahay yaa maxaa ka niyuusa barbahan siyaasad bay ka shidan tahay yaa siyaasiyiintan waxay ka shidan tahay waxay ahaatay meelaha ku shirshirayeen iyo beeshaan Kismaayo ku shiraysay caawar bayna ka hadlo beeshaan Kismaayo ku shiraysay horta waa wixii dalka kuwii soo fashilmay oo meesha soo hayo talada waddanka soo hayo waaye beesha Kismaayo ku shirtay marka laga reebo labada nin oo Siciid Dani iyo Faroole iyo wiilkiisa Siciid Dani iyo waxay ahayd Axmed Dhuxulaysto inuu meesha xoog ku haysto raba adiga waxay ahaaday Soomaali qabiil meel laga dhigo lawayaha maaragtay qabiilan wala dila qabiil faa'iido male maaragtay qabiil naarli ku geeyaha mahare yaa iska dhaf qabyaalada walaal qarannimada u fiil walaal qaaliya garat qarannimada dadku nahay qabiil wax ma nihiin qabiil meel ma gaaro qabiil wax ma taro laa yanfac walaa yadar qabiil ma garat meel ku gaarsiiyahay male siyaasiyiintana jaranjaro dadka masaakiinta uga dhiganaysa dhowna waxay ahayd naarta iska xaabada naarta kulmid noqonaysa faa'iido ma lahan hadhowna waxay leeyihiin yaa ilaahu kuwan yaa adinkana soo raacday ilaahu kuwan naarta u dicfi u laba laab yaa marka qabiil faa'iido leeyahay hadda siyaasiyiinta laga daba oraayo la leeyahay waa kana Hashim Maxamuud qabiilnima ku taageera Shariif Sheekh Axmed qabiilnima ku taageera Cabdikariin Xuseen qabiilnima ku taageera faa'iidana ma lahan qabiil waxay ahaatay laakiin wixii dalkeena si guud waa loo iska taageeri kara laakiin qabiil weliga qofna ku nicin qofna ku taageerin qof hadana astar ilaahay una hadda qof jeclahay sanadar ilaahay jeclo ma garatin laakiin ina qabiil wax ku jeclaad qabiil wax ku taageerto wax jira ma faa'iidan ay ku leedahay ma lahan dan aakhiri dan adduun midna kuma sugna yaa walaalayaal marka waxay ahaatay marka inaas xasuusino isbaraarujino waa qayb waxay ahayd kamid ah waxay ahaatay iskaalmeysi wanaagga isku kaalmaysto mar walba wixii wanaagga isku kaalmaysiyahay Cabdikariin Xuseen Guurad wuxuu soo fashilmay waxay ahaatay ninka kale la dhahayo
waxaa soo fashilmay faroole, waxaa soo fashilmay Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif waa dadkii soo hayay meesha kasoo tagay waxay aheeday badda kusoo fashilay ninkii Garaacad Shakuur waa ninkii waxay aheeday badda inuu gata la aaminsan yahay laakiin bad ma gadan kariyo quranku. yaa kale waxay aheetay Faarax Cabdulqaadir shaydaankii garka xun leh yaa naagtiis waxay aheed midda aaminsan Somaliland aaminsan Soomaaliya aaminsaniin. marka odayaashaas waa qaatam xumaha ku dhamaysanina leh walaalayaal. laakiin ninkii abwaandhiirani lagu sheegayo ku sugeenoo abwaandhiirani yaa odaga abwaandhiiran ahayo sacsac ahayo inkaarta qabay kaameriistii ka wateen insha allah mar damba la arki maa kaasoo waxay aheetay meelaha ay wareegaya inta boorsadii gabdhaha dhexda kusoo xirto macawisoo dulo fara soo gashto yaa meelaha warwareegaya duura ka dhex jibaaxa arki maan insha allah. hadduu minu dhex jibaaxayna dee kaameradii walax ka daba sida ma jira oo ninkii wiilka u sidii jira taali lagu sheegayana iskaga soo tagaa la dhahay karqabaha khaatimada beelay iyo khaatimada kusoo jitin yaa khaatimo see wadaa. marka wiilkiina waa laga watay oo ilaahay mahadiis baadilka la daba taagnaan kaameradii. waxaan rajiyaha kaamerada in laga xado kulleyba axmed madow kaamera u gadi maaya wuxuu leeyahay niyo minaan guriga kilaa kaa baxsho yaa iyo minaan waxay ahaatay meesha kaa baxsha nasiib leedaha la dhahaa yaa. marka qofna kaamera u gadan maysa kaas waa iska oday iska dhamaada. marka waxay ahaatay wuxuu hadalkaad inuu xigmad leeyahay dalkan waxtaraya dadkan waxtaraya la rabaa ma garateen. marka wallahi Soomaaliya ayaa kusoo daalay siyaasiyiin dadka masaakiinta qabiil hadhow markay meesha u gaaraan jaranjarta iska soo tuura waa sidii Sheekh Cabdixay u sheegay ma garatay. marka dadnimada aqliga saliimka ha shaqeeya walaalayaal ma garateen. taasaa muhiimad u tahay taas ayaa muhiima ka ah laakiin walax kaloo muhiim ah ma jiraan. taas walax ka muhiimsan malahan yaa arrintaas ma aragtay aa muhiimsan. marka waxay ahayd waa arrin cajiiba fandigsideeda wadata yaa aan waxba laga qaban karin yaa cajiib lah cajiib ah horta yaa heesihii kacanka horta yaa heestaan ishaafistaan inta ku arkay meeraha ku dhan يا رب الله كعسرك dowladda ahaa makee lagu socod guuda aadan uus ma noo imaan lahay ma aadan uus noo imaan lahay aadan uus ma noo imaaday